dhaqanka suuban ee soo jireenka ee Soomaalida waa dhaqan dahabi oo ay kaga tilmaamayeen dadyowga iyo qoomiyadaha ay wada degaan bariga Afrika inkastoo dhaqamadaasi wanaagsan diinteena Islaamka wax badan ay ka waafaqaan haddana marnaba si dhab ah looma diiwaangelin dunida daafaheedana looma gaarsiin dhaqankaasi wanaagsan arrintaasi waxay keentay in la arko inteena xun foodo magangeliyo doon iyo burcabadeednimo in lagu sunto dhaqamada sida aadka ugu faanta Soomaalida waxa kamid ah martisoorka kana mid ah dhaqanka suuban ee soo jireenka ee Soomaalida dhaqankan oo meel sare ka jooga diinteena suuban ee Islaamka ayaa haddana Soomaalidu uu ka mid yahay dhaqamada sida aadka ugu faanto qorayaal badan oo ajaanib ah Soomaaliya wax ka qoraya sheegay in Soomaalida ay yihiin dadka wanaagsan martisoorka waxa dhaqan u ah ummadda Soomaaliyeed inay si fiican u soo dhaweeyaan una sooraan martida lana wadaagaan wax walba oo marka reerka loo soo martiyay ee heli karaan Ibn Battuta wuxuu qoraaladiisa ku xusay in Soomaalidu uu ku arkay magaalooyinka xeebaha ku teedsanaa ay ahaayeen dad ku martisoora martida hilib iyo caano oo ay Soomaalidu hodan ku ahaayeen mararka qaar waxa dhacda in qof uu soo martiyo iyadoo xilligu aad u kulul yahay laguna jiro xilli abaar ah xooluhuna ay ku leeyihiin taasi oo jirta ayaa haddana waxa waajib ku ah reerka loo soo martiyay inay sooraan soona dhaweeyaan dadka safarka ah ee soo miciinbiday caadiyan reeraha miyiga degan waxa had iyo jeer u soo martiya qof safaraya oo wadadii ka ambaday ama meesha reerku degan yahay maraya martidaasi waxay isugu jiri karaan dad xoolo luma raadinaya dad safar dhul dheer ku socda oo reerka habeenka u hoyanaya iyo macallimiinta quraanka oo doonaya inay reeraha ubadka u baraan quraanka kariimka nolosha dadka reer miyiga ah had iyo jeer waxay maanka iyo maskaxda ku hayaan xilli kaste inay dad marti ah u soo miciinbidi doonaan sidaas daraadeed waxay xil iska saaraan sidii ay magacooda iyo sharaftooda ay u ilaalin lahaayeen way bulshada ugu dhaxeeboobin haddii reerku leeyahay geel waxa martida loo qoondeeyaa hal ama laba halaad oo irmaan si martida loogu soo dhiso caano mararka qaarkoodna haddii reerku ladan yahay waxay martidu ku sooraan ama ogolaan neef ariya ama geela hadba inta tirada dadka soo martiyay ay leeyihiin xataa haddii xilligu xun yahay waxaa waajib ah in martida la sooro lana soo dhaweeyo ayadoon loo eegin qabiilka xitaa haddii labada reerood waramada isku sitaan abaan yamyam oo ka hadlaya dhaqanka suuban ee Soomaaliga ayaa tudciyo ka mid ah gabigiisa oo kaga hadlaya martisoorka Soomaalidu ay ka wanaagsan tahay waxa uu yiri marti gaajo hayso gasiin kale aan loo heen ayaa waajib gudashada hasha geela ka irmaan loo gowracayo kala loo dugsiyaa hilbaha loogu geeyaa reerka ku wanaagsan martisoorka waxay ahaayeen oo loo soo heebsado oo lagu soo irto masaafirkan isu soo tilmaamo waxa waliba dhici jirtay in loo soo gayaan doonto iyadoo la aaminsan yahay inay gob yihiin reerka sidoo kale qoyska martida ka seexda ayaa ahaa kuwa lagu sheekaysto gabayo iyo geeraarana laga tiriyo la iskuna wada sheego oo laga weecdo waaba haddii aan la fangorin oo aan la takoorin gabdhahoodana la gayaan seejin dhaqanka Soomaalida waxaa ceeb weyn oo sheeka reebta noqoto ku ah waxa ka mid ah haddii martidu kugu qado ama mudnaanteeda la sii waayo sidaas awadeed ayaa Soomaalida qiimay qadarin gaar ah siisaa musaafirka u soo mingalo iyadoo curdan iyo roolaba kuntiga loo xirto maamuuska martida si gaar ah haweenka ayaa door muhiim ah ku lahaa habsami u socodka hawshaasi waxayna ka mid tahay qodobada marka horeba lagu xulan jiray gabdhaha la guursanayo gabayaa Yuusuf Maxamed Xirsi oo arrinka ka dardaarmaya wuxuu gabigiisii guur aan kala aad ku yiri gool weyn midii loo qaliyo gogol la soo dhooway gob haday timaado martida igu dul gowrirto weelkeedu tuu gorof yaheen laguba gaadheenin nin guraan minkii loo dhigay gobi la yaabtaahe intaan ciil la gow oo dhan lahaa guur aan kala aado maadaama aanay jirin isgaarsiin lagala socdo halka qofku soo marayo iyo xilliga uu reerka ku soo beegan yahay ama guuxa gaadiidka oo dadka dareen geliya waxa qasab ahayd in mar walba marti habaqlaha loo taagayo aadaabta martida laftirkeedu waxay leedahay aadaab iyo tartiib ay cidda ku soo gasho taasoo wax badan ka bedeleen mideena maantay qooti dalaq iyo waafay xaafada ku xiran yahay salaanta laga bilaabayo markay martidu shanqadha reeraha soo raacdo ama tilmaamayo tub ku timaado waxay sira taagaan meel reerka ka baxsan iyagoo qof macquul ah soo cid dirsanaya qofkaasi salaanta islaamka kadib ayuu reerku ku yiraa maxaa lagu bariyay reerku ma nabadba iyo wixii la mid ah kadibna u sheega inuu yahay ama ay yihiin dad marti ah waa hadiisa ayna cidi meesha ka garaneen ama tilmaam ay weydiistaan hadduu jiro qof ama qoys ay bargaranayaan isla marka martidu soo joogsataba waxa isxilqaama qof soo dhaweeya oo u dhaxeeya dumarka dabka shidaya iyo martida isagoo kolba ka wardoonaya halka xaalku marayo si hoosan xawaleed ugu guubaabinaya inay kuntiga dhiisha isaga dhigaan oo martidu qumaati marinkeedu wuxuu yahay u mariyaan waxa markaaba dabka lagu tuuraa kirli ama jalmad shaaxa
mararka qaarna laba dab ayaa la iska garab shidaa oo midi waa shaahii dhafoor jabiyaha ahaa midna waxaa lagu kariyaa kalaankal ama beer ka horreeya hilibka caadiga ee neefka la loogay waa haddii neef la qalaye ama waa soor hadba say tabartu tahay markay martidu ka farxalato wixii calaf ahaay ee lagu marti sooray baa dib loo galaa sheekooyin war iyo wacaal isweydaarsi lagu mataaneeyey mahmaahooyin murti taariikh iyo kaftan kooban oo midba midka kale ku raaligelinayo haddiiba ay jiraanba waxoogaa gabaabsi ah oo dhankiisa ka yimid sida martiqaadaha oo yidhaahda war waa laydiin hafraye ha noloo ceeb asturo meesha waxba kuma hayne iyo martida oo tidhaahda maya annankaa reerka alaalixidnay oo ceer ka dhignay iyana waxaa xusid mudan in martidu ku kala duwan tahay garashada iyo aqliga mararka qaar waxaa dhacday in martidu soo cidgasho iyadoo cidda dabka waxa u saaran ay yihiin inta ay iyagu isugu talagaleen markaanoo kale waxaa dhacda in cidda martida loo yahay ay samaysan nafuurnimo oo intii yarta ahayd iyaka iyo carruurta ay isugu talagaleen martida loo geeyo markii halkan sheekadu maraysa ayaa ah marka garashadii aqliga ay kala hormariso martida oo waxaa dhacda marka qaar in qofka martigaahi uu laysto dhammaan wixii loo keenay isagoo aan hambayn kanoo kale soomaalidu aad bay u dhaliishaa gabayee mahmaahooyinna waa laga sameeyey oo waxaa ka mid ah 3 ragga ka mid ah lalama rafiiqo ma horreeye mahasaawe iyo mahambeeye oo loola jeedo kaan ciddii martida soortay aan waxba dib ugu celin ee haynsada halihii loo keenay guntii gunaanadkii gabagabadii waxaan filayaa in qaar badanoo inaga madahi ay dib u kocdeen noloshii reermiyiga oo ay ku soo barbaareen halka kuwii aan nasiibka u helin aan filayo inay jeclaysteen qaabka xadaaradda iyo ilbaxnimada huwan ee reermiyigeennu nolosha u kala agaasimi jireen xilli uu yaraa adeegyada asaasiga ah ay haysteen reermiyigeennu waad ku mahadsantahay daawashada iyo la socodka barnaamijka wabilaahi tawfiiq